Donald Trump oo xalay aflagaado noocaan hore loo arag uu dalalka kale uusan u jeedinin ayuu xalay warta Soomaaliya aflagaadadan waa qasab madaxda Soomaaliyeed inay ka soo jawaabtay xilligii la iska hurdaayay ee la isbaasbaaseenayay sheekada way dhaftay war dhalinyarada waa xirxirtaan markay aflagaadiyaan magaalada amni kama jiro inta ay ka dhac waa soo qabtaaye jawaab kaliya Twitter xitaa ha noqoto ama xitaa anigoo ku hadlay afka dhalinyarada viisaha New York ugu soo socotaan shirkan 35 qof soo dabadudaysa madaxweynaha ee loo soo socdo Security Council-ka hala kansalo haddaa kansali weysaan sameeya sida tii Roberto Mugabe uu sameeyay Qadaafi uu sameeyay madaxda Mareykanka madaxda caalamka ee Mareykanka isku kacsan yihiin markay New York imaadaan ee fursad dahab u noqotay in ay cambaareeyaan oo dhulka ay ku jiidaan dalka ayaga mar walba dhibaayay yani Mareykanka ka hadlayna saas samayn jireen Muammar al-Qadaafi Roberto Mugabe waxay sameeyay madaxweynaha Iran Ahmed Najad waxay samayn jireen markay imaadaan fursad dahabi u noqotaa New York ayagoo saas u taagan waxa arkaysaa wufuudi Mareykanka oo ka sii baxayso qolka maxaa yeelay waxba uma reeban jirin hal mar ay ku furfuri jireen wixii uqdad ay qabeen haddee saas dhici weyso oo madaxdeena qaab daradii aan ku ogeyn meesha intay noo soo istaagaan soo kabanayna dhaqaale badan u baahan Mareykan oo wax nasiiyo iyo aflagaadadan meeshaan ku qoran wariya idinku daalin asagoo Ilhaan Cumar soo gambanayo Ilhaan Cumar Trump wuxuu yiri dalka ma Ilhaan Cumar ay ka imaatay waxa baabi'uu leeyahay wax kama jirto wax dawlad dhexe ah kaliya aflagaadadaas adiga bal meel u dhig micnaheedu waxa waaye maba jirtiin baxas sheekh iyo dawladan hadda jirto iyo maba aqoonsani waxba ma dhaanto markuu leeyahay lack of central government control yani awood dawlad dhexe oo meeshaas gacanta ku haysa maba jirta taas oo loo fasirin karo adiga ma aqaan qaab kale kugu fasiro meesha dawlad maba ka jirta persistent poverty uu leeyahay fakri aanba dhammaanin oo joogto ah gaajo resurgent terrorism argagixiso nooc walba maanta dhan soo taagan haddaa dhankan u riixdid kusoo riixaayo piracy burcad badeed decades of civil war sanado oo dagaal sokeeye ah musuqmaasuqa corruption pervasive violence rabshado baahsan oo meel walba ka jiro 70% kulaha dadka Soomaaliyeed ha ka soo jawaabaan madaxda Soomaaliya waxaan wax loo dulqaadan karaa madaxweynaha dunida la leeyahay the most powerful ay hadalka soo qoray ina ka aamustid Soomaali kama yeelaysa saaxib waxyaabo far badan idinka yeelnay idinka ma yeelay jawaab ka soo bixiya si jawaabtii uu Ibrahim Traore markuu kii Faransiiska Macron uu Afrika aflagaadeeyay jawaabtii Ibrahim Traore uu ka bixiyay adkeed uu dhahayay Macrono anaga daanyarano malasa bini'aadam noo malaysid adiga daciif ah oo Afrika la'aanteed Faransiiska la sheegayaba Afrika dhistay ayuu uga jawaabay Ibrahim Traore hadda ka hor markii Macron uu soo aflagaadeeyay jawaabay u baahan tahay hadal walbo falcilnu leh waliba qof madax ah markuu dalkaada iyo qadiyadaada iyo dawladnimadaadu aflagaadeeyay way adin si wado 70% kulaha dadka Soomaaliyeed gaajo fakri nooc ugu xumeeday ku jiraan maxaa jiray Soomaaliya waxay ka mid tahay ku ugu horeeyay dunida dhanka musuqmaasuqa laaluushka la kala qaadanayo embezzlement tuugnimada socoto dysfunctional government dawlad kala daadsan oo wax is haysta meesha aysan jirin adiga intaas firi wuxuu kala ku sii daray wuxuu leeyahay Ilhaan Cumar meeshaas what a scam within a country warka idin soo koob Soomaaliya waxa lagu tilmaamay waxaan hadda qof Soomaaliyeed uu soo qori lahay oo Soomaaliya joogo ama Muqdisho joogo wala xir lahay waa hadal culus dawlad dhexmeesh kama jirto tuuga tihiin musuqmaasuq bakhti argagixiso burcad badeed ilaaha idinku dhaariyay maxaa marka horta idin fasaxo muuqaal yar Ibrahim Traore مقالة فرب بضم أيدين سو قادين كري لكن وحقوبانا 1 hour عمل معمر قذافي أرتا هذا معمر قذافي واكنا أو Mareykanku meesha ka sii yaacay
markuu hadlay idinkoo taas daawanaysiin haddana waxaa rabaa sidoo kale ninka la yidhaahdo Ibrahim Traore oo maba dhiga dharka tuutaa asaga reer galbeed dhan uu fahmay iyo qorshahooda iyo tuugnimada mar u soo socda ninkaas New York maba rababa ma rabo labana casuumo mana codsado ruushkiisu iska aadaa shiinihiisu iska aadaa dalkiisu iska joogaa dadkiisa jecel waxa waaye qadiyada maxalli qalbigaas uu xor ka yahay madaxda kale ee Afrika Maraykanka la aadaa New York la wacyaal tahriib oo kale si loo soo dudo oo ku sii tashtaanbo wayba ku sii tashtaan boorsa ka soo buuxsanayaan dharkii matantihii iskaarshadii we're going to New York itaagin hasa wax weyn iiga la Ibrahim Traore he also insulted all Africans. I think they forgot to say thank you to us. It's not a big deal. It will come with time. There is a part that caught my attention where he talked about ingratitude. He also... أكرمنا ملاحظة كنسلا برنامجنا برنامجنا أوسو دوديسان نيو كنسلا حدي أذن كنسلنا waxa idin kaga fadhinaa television kortiisa fadhinaa in hadalkaas jawaab aka bixsan sida Qadaafi Muammar Qadaafi Saddam Hussein iyo Ahmed Najad iyo markay meesha soo iyo madaxweynaha Venezuela iyo markay meesha soo istaagaan si iska dhicin jireen caadi aflagaadada lagu wado counter attack ay sameyn jireen idin ka rabnaa haddii intaas aadan sameynin Soomaali weligeed idin iloweyso baalka madow ee foosh xun ay galisan ama Twitter ku soo qora madaxweynuhu link yaa leedahay account aa leedahay wax soo qor anaga aanoo hurdin aan baasbaaseenin